madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdillaahi Cosoble ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar waxaana madaxweynaha soo dhaweeyay xildhibaanada Hirshabelle maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe waxgarad haween dhalinyaro qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan iyo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Hirshabelle Canab Axmed Ciise ayaa ugu horeyn soo dhaweeyay madaxweyne Cosoble. madaxweyne waxaan ku leenahay soo dhawaaw aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaad maartay soo gaartid caasimadii waxaan rajaynaynaa in maartay howlihii idin bilowna inay maartay meesha ka sii bilaabi doontiin meesha ka sii doontiin soo dhawaada waxaan ku leenahay mudana madaxweyne soo dhawaaw ku soo dhawaaw caasimadii in aad ka deganayd dowlad goboleedka Hirshabelle caasimadiisa Jowhar ku soo dhawaaw shacabkii reer Hirshabelle. madaxweyne Cali Cabdillaahi Cosoble ayaa ka warbixiyay safarkii uu uga maqnaa Hirshabelle. anagu xamar waxaan joognay waxay doorasho madaxweyne waxaan jeclayn kulliba madaxweynihii dalka ka soo baxaa mar walba wuxuu noqonayaa madaxweyne ummadda Soomaaliyeed guud ahaan يعني ay leedahay madaxweynaha hadda soo baxayna mudane maxamed cabdullaahi farmaajo aad iyo aad aan u soo dhaweynaynaa. sidoo kale madaxweyne Cosoble ayaa sheegay in saacadaha soo socda uu magacaabayo golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Hirshabelle saacadan ka bilaabato ilaa iyo saacada ugu dambaysa ee dastuurka ii saamaxayo inta gudaheeda insha Allah ku dhameystirmi doontaa. aad iyo aad aan idinku mahad celinayaa insha Allah taala saacadaha soo socda iyo adiga maalmaha fooda lagu soo hayana waa iska warhayn doonaa qaabka isbedelada iyo howlaha iyo waajibaadka iyo wixii soo kordhay xoog badan dadka xildhibaanada qof aan markaa yani soo bixin maaha intii kale hadda waaba xamar ayaan isku wada aragnay haddana in la soo wada galay waa rajaynayaa waxay dhimanay ilaa iyo galabta iyo caawa iyo inay soo dhameystirmi doonaan marka waxay ka dambeeyaa waa shaqo insha Allah taala waajibaadkiina loo idmaday gudashadooda ayaan si dhab ugu soo jeesanaynaa waxaan ka shaqeyn doonaa nabadeyn iyo horumarin iyo dib u dhis iyo wax qabad. Ismaaciil Cabdulle Sabriye Universal TV Jowhar.